muwaadiniintan oo ku dhaawacmay qaraxyadii maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ka geysteen magaalada muqdisho ayaa waxaa booqasho ugu tagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre si uu ogaado xaaladooda caafimaad sida ay tahay iyo inay helaan adeegyo caafimaad oo ku filan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dhaawacyada ugu tagay cisbitaalada Madiina iyo Erdogan Digfaar magaalada Muqdisho kuwaasoo ah kuwa ugu badan la geeyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii arxan-laawayaasha al-shabaab ay ku dhibaateeyeen shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan balse ay dhibayso noloshoodu. ra-iisul wasaare khayre ayaa dhaawacyada mid uga xog wareysanayay xaaladooda caafimaad iyo haddii ay jirto waxyaabo kale oo ay dowladda uga baahan yihiin halka kuwaan awoodin iska warbixiyaan oo xaaladooda ka wareysanayay ehelada la joogtay. isagoo dhammaan dadka dhaawacana alla uga baryay in caafimaad degdega waa la siiyo. dhinaca kale waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxaasi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud oo ra-iisul wasaaraha ku weeliyay booqashada ugu tagay dhaawacyada ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay inaysan ka niyad jabin dowladnimada isla markaana laga adkaan doono kuwa cadawga. waxaan soo marnay cisbitaalka weyn ee Madiina, waxaan soo marnay cisbitaalka Digfaar. marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegaynaa hadiya habeen inuu ra-iisul wasaaruhu dalku shaqaynayo annaguna aan shaqaynayno aan laga daaleyn. shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay niyad jabin, dalku waa hagaagaya insha Allah taala. kooxahaas argagixisada ah waan ka rayn doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraaho. waxa haray waa wax yar, intaasuna waxay u baahan tahay inaan isku duubnaano, gacmooda jirib ay wax ku gooyaan. taasi waxay cadeynaysaa caawa ra-iisul wasaarihii dalka 12 habeenimo inuu dhex marayo cisbitaaladii magaalada Muqdisho isagoo oo booqasho ugu jira dadkii bukaanka ahaa, isagoo oo qof u dul istaagay qof kasta marxaladdu ku jiro iyo sida uu yahay isagoo oo wareysanaya. waa wada arkayseen. marka insha Allah taala waxaan leenahay Soomaaliya guul iyo gobonnimo u rajaynaynaa. dhacdo kasta oo xambaarsan cadawtooyo ayay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ku xasuuqaan shacabkeena, waana hadafka weyn ee ay leedahay kooxda gobolkeedu sii dhacayso al-shabaab dabargoynta shacabka Soomaaliyeed iyo inay ka been sheegaan diinteena suuban ee Islaamka. waxaana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in dagaalka cadawga ay kula jiraan ciidankeena ay garab iyo gaashaan u noqdaan geesiyaasheena qaranka oo habeen iyo maalin u taagan badbaadinta nafta iyo maalka muwaadinka Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.